akhyaarta sharafta leh maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ayaantan masaajidada jimcaha kasoo qubeeya waa qaab cusub uu hadda la soo baxay. marka madaxweyne xasan waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijkii uu ka hadlayna aan wax idinka maqashiiyo. madaxweyne xasan wuxuu ka hadlay Puntland iyo dhaqankeeda iyo dowladeeda 24 sano inay jirtay ayuu ka hadlay. wuxuuna farta ku mudayaa dowladda uu madaxweynaha u yahay Siciid Deni. marka hore waxaan leeyahay bal horta hadalkiisa ila dhageysta, waanu jawaab baan ka bixin doonaa, laakiin horta marka hore hadalkiisa ila dhageysta. Puntland waa deegaan Soomaaliyeed, hadda ka horna waa ka hadlay dad macno badan, dowladda macno u leh, taariikh fog oo maxaan ku raada dowladnimo leh yaa degan. waxaan rabaa inaan sheego raalli kama ihin dadkaas in uu nidaamka ka dumo iyo inay isdilaan, intaba raalli kama ihin. laakiin ifafaalayaasha muuqda waddadaa aan soo marno sheegaya mugaan barbar dhigno ifafaalayaal fiican ma aha. madaxda Puntland waxaan leenahay dadka iyo rabitaankooda tixgeliya. hadalkiisa akhyaar waa maqlaysay madaxweynaha. ifafaalaha waa ii muuqdaa uu leeyahay wax kale ma aha, waxaa weeye doorasho qof iyo cod ah baa ii muuqatuu ka wadaa. maxaa yeelay isaga waxaa la yidhi doorasho qof iyo cod dowladda gaarsii, dowlad goboleedyaashan soo diyaariyaa la dhahay. Siciid Denina wuu qabtay doorasho qof iyo cod ah, howshaasuu ku jiray waana uu qabtay, hadda waa u dhamaystirmatay. odayaasha uu sheegayo dhaqanka uu leeyahay hadalkooda ha ka tilaabsaninna waa odayaasha raba doorasho iyo qof iyo cod ah. marka madaxweynaha asaga ayaa wuxuu soo diray koox buu lacag soo siiyey doorashada ka hortagta oo Puntland dagaal ka bilowda oo xabadda bilowda, asagaa soo diray. marka madaxweyne xasan waa inuu ogaadaa munaafiqa ilaahay wuxuu diinta ku sheegay fi darki al-asfali min annaar, naarta meesha ugu hooseysa in la gelinayo. asaga waxaa laga rabaa dowladdiisa uu madaxweynaha u yahay in uu qof iyo cod gaarsiiyo, xukunkana dadkoo dhan, dowladdiisa inay dadkoo dhan xilal ka muuqdaan baa loo baahan yahay. asaga kuma dhaqmayo kursi walba ciddiisii uu ku fariisiiyey. koonfur galbeed waa ka degi la-dahay, maalin walba safar buu u yahay, wuu ku sii socdaa, dhulkoodu ku haystaa. baraawe wuxuu rabaa inuu dejiyo masaari buu rabaa baraawe inuu dejiyo oo ka kiraysto. haddii masar la keeno baraawe, Etoobiya waxay burburinayso waa Soomaaliya, ilaa cadowgeedii ay Soomaaliya soo dhaweysay. Soomaaliyana kama bixi karto culeyskaas iyo dagaalka, kama bixi karto Etoobiya. maxaa yeelay Etoobiya deris bay Soomaaliya la tahay. marka maxaa loo baahan yahay dadka koonfureed ee xasan uu kasoo jeedo, waxaa loo baahan yahay xasan lacag buu iska rabaa, ilmihiisii waddanku uu ka saartay. waxa dhimanaya waa dadka xamar jooga iyo Soomaalida wixii ilaahay u qoro micnihii dagaalka hadduu dhaco. marka xasan dantiisa ku fishanine ifafaalahani waxa uu sheegayaa iska dhaaf. dowladda Puntland waa hormartay, dadka maamulana waa dadkii asaga soo saaray. Siciid Deni wuu ku kibriyay xasan sheekh maxamuud. 50 qof baa dooratay xasan, 50 baa dooratay, inta kale waxaa ugu daray Siciid Deni. Siciid Deni markuu ugu darayana ismu soo dhahayn xasan aduu target kaa dhiganayaa. Siciid Deni ninkuu ka tegayay shalay oo ka soo horjeeday nin adeerkiisu ahaa, haddana waa kaas ninkii uu siiyey codadkiisii baa cadowgii koowaad ku noqday. Siciid Deni waxaan leenahay hadduu imaqlayo aan leeyahay war cadowgaagii weeye kaa dooratay, maantayna kuraasta wuxuu ku fariisiyey
waad aragtaa ninka nisa jooga Mahad Salaad qabiilkiisa Cabdiraxmaan Shukuur wuxuu helay 15 xildhibaan haye intaasuu xasan siiyey maantayna nisa waxaa ka ah Mahad Salaad kursi walba Mahad Salaad ciidiisu siiyey wixii aad Siciidani oo aad siisayna wuxuu u arkay wuxuu midhaa asoo xoog u lahaa marka anigu xasan waxaan leeyahay adaa munaafaqad kaa buuxdaa waxaad tiri dunidu heshiisa Soomaalida heshiisa iyo dunidu la heshiisaa tiri wax heshiis ka shaqeynaysid ma laha koonfur galbeed waa kaa degi laadahay Puntland adaa lacag ku bixinaya inay burburto laakiinse ma burburayso dad xalaal ku dhashay oo xalaal cuna ayaa Puntland xukuma kuna nool dhaqankeedana waa dad xalaal cuna wixii xasan waa soo dhoobtidna waa iska qabanaynaa 4 sano beel doortay sanad waa tagay had sana liigu daraa leedahay farmaajo shan markuu dhahayay qof iyo cod baan gaarsiinaya 2 sano lagu dari mayo kumana darsan karaa dhahaysay ma fahanta cida ka abaweynta ma jirto 3 sano ku hartay 3 sano waliba maalmo tageen ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu 3 sano dhaqsana dhaafiyo Soomaalidana dulmigaaga uu ka horleexsho markii lagu doorto madaxweyne xasan Soomaaliya oo dhan dagaal baa ka dhaca baraawo dagaalka ka dhacaya adaa madaxweyne ka ah Soomaaliya ma ka hadisho dhahdid baraawo dagaalka laga daay bareegil guud baa baraawo leh dhuuso mareeb iyo dhulkooda imaad ma tiraado argixisay ka saar ma dhahdid hay dhuuso mareeb ilaa iyo gaalkacay waa haawanaysaa ma wax ka beerta dhahdid dadka dhulkooda maxay ugu qamaamayaan Mahad Salaad maxaa halkaa ka jira xasan sheekh maxamuud kitaabkii ilaahay amartay maanta aakhir waa lagu weydiin doonaa dadkaas aad ku Soomaalida waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud hala wada dhaliilo reebaraaw dhibkaasaa ku haya ciidamada weerarayo qabiilkaana shaarka dowladda Soomaaliya loo gashay lafta gareen inuu dowladdiisa shaqeyn buu rabaa xasan sheekh maxamuud wuxuuna saas u rabaa lafta gareen farmaajo dowladdiisa la shaqeyn jiray saasuu ka wadaa wixii ciidan uu farmaajo sameeyo dhan mission baa lagu dilay wax qof walba uu farmaajo dowladdiisa la shaqeyn jiray inuu bedelo rabaa Soomaaliya wuxuu rabaa mugdi inuu gasho xasan sheekh maxamuud ninkaas xasan sheekh maxamuud anu waxaan leeyahay caqli waaye ma laha ha ka soo qeeliyo masaajidka ha ka soo qeeliyo laakiin Soomaaliya waxaan oran lahaa dadka dhibaatada lagu hayo ka soo horjeeda xasan waxaa dhahdaan saa wax ku wadi ma fiicne ama farmaajo la mid noqo ama caalamku waxay dhaheen cadaanka waxay dhaheen waa lagu maamulayaa haddaad hore u socon weydid ha lagu maamulo farmaajo maxaad xasan sheekh maxamuud uga tirinaysa farmaajo dowladdiisa si fiican buu u waday maxaa uga tirinaysa qofka walaalkaaya oo wax qabanaya libintiisa waa la ogolaadaa xasan shisheeyaha ayaad ka dambaysaa anigu weli waxaan u malaynayaa dadkii Soomaaliya waxay ka shaqeyn laadahay laba reer labada reer waxa weeye reerna cadaankii gumaysiga garbahay ku qaadi jireen labada garbood baa laba nin ku qaadi jiray xasan meeshu ka soo jeedana dhulka seexda inta la dhaho iyo mooska lagu jarin jiro dhiiqada la iska xijin jiro dhabarka lagu socon jiro war gumaysigii ilaa gumaysta xasan oo hadda aad ugu rabtid waxay rabtaa Puntland iyo Soomaalida kale waxay rabtaa inaad idinka leedin gumaysan ayagana de awalba waa la gumaysan waayaan gumaysan la soo aadin bay rabaan laakiinse aad wada noolaataan marka qofka walaalkaaya markuu dowlad fiican si xun dowladda uu soo hogaaminayo dowladdiisa si fiican ku wado ha dhaliiline si fiican baad wax ku wadaadhe adiguna si fiican dadka u hogaami markii madaxweyne laga dhigo adigina wax ma qaban kartid xasan sheekh maxamuudow farmaajina shal waxbaa ka sheegaysa dowladda soo haya oo si fiican wax u qabanaya wax ka sheegaysa hadda waa kan xamar waxa lagu leeyahay bajaajka qofkii inta xabad lagu dhufto baarinjiga laga soo bedelanayaa bajaajti nin kala ku shaqaysanaya haye hadda haddii xamar laga tago cadaanku ka baxo Soomaali kala tagto
bakaaraan soo dhaafi maysa xasan ma soo dhaafaysid reer walba oo xamar deganna xaafaday degaan keliya gaari ku wadan karaan 20 minute ma socon karo gaarigu baabuurtaa iska dhacaysaan gaari shidaalka taangiga kuma shubanaysaan waxaa ku shubanaysaan todobaqaad baa shidaal ku shubanaysaan ruuxaysaan nolosha ugu xun Soomaaliya xasan 24 sano waqti dhow ma ah maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxaa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan xasan sheekh maxamed wuxuu yiri 24 sano dowladda dhisneed 24 maalmood baa inay ku burburto dhici karta ana hadalkaas waxaan ka leeyahay xasan waa saa jeclaan lahayd meel qurxoon iyo meel dhisan oo aad jeceshahay ma jirto garacad waa tagtay markii hadda la dhisay la wadaan dhisayaa baa tiri wadada ana bixinayaa tiri dadku hadalkaagu waa rumeeyeen maadaama ay mas-uul tahay midda kale dadku ma qabaan la haysta inaad tahay oo aad u tahay la hayste ninka la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geele waa isbedeshay Puntland hadalkaaga way sharfis way kugu sharfis mooyaane takadooda ayaga dhistay wada maxay la tahay 2 maalmood baa wada lagu dhisan karaa quruxdooda ayaga ka shaqaysanayay laakiin waa sidaa jeclaan lahayd Puntland inay burburto inaadan Puntland aadan maqlin mana uu ka yeeli ilaahay ciidamo hadda ka hor intaa soo dirtay waxaa tiraahday ilaa ay buurtina leedihiin oo dagaal dhacay oo aad ciidamo diyaarada ku soo gurtay marka ceebta ma aha xasano waxaad ka shaqeynaysaa ceebta ma aha ee waa caadada qurux baad moodaa aakhiraadan lahayn baan u malaynayaa odayna waa tahay haddii adigu aad wax qaban kartid aan waxaan ku oran lahaa masuqa dowladdaada hareeyay lacagtii 9 milyan uu hayay farmaajo wax badan markii lagu doortay adoon kursiga tagin 4 maalmood gudahood baad ku saxiixday in lala baxo adigu xaaraanta iska ilaali adigu wiilkaagu diyaarad baa saarta $24,000 Kenya ku raacaa farmaajo wuxuu raaci jiray shicibku diyaaradda la raaci jiray wiilkaaga yaa raba ma ninkaas digirta ka dhargay baa cid u baahan tahay oo xoog u sheeganaysaa maxuu dadka dheer yahay lacagtii mushaarkaaga baa $24,000 ka badnayne wiilkaaga keliya baa diyaarad ku kireysanaya 24,000 haye adigii baa hadda waxaa lagu leeyahay hal sana lagu xilka haysaa 4 milyan baa qarashaa kugu baxay safarkaaga waxaa lii maroodiga takata saaran uma jeeda kala takata saaran buu jeedaa adiga musuqmaasuqa iska qabo Puntland haddaa rabto inay burburto ilaahay bay kaa hoosgelaysaa ilaahay baa kaa qabanaya cadowga Puntlandna ilaahay ha qabto Soomaalida kalena ilaahay nabad dulkooda ha nabad iyo barwaaqo Allah siiyo waxaan ku leeyahay reer Baydhabo dhulkooda uga leexda xasan wax ka jira malaha balweyne salkeeda ayaad u dhalatay halkaasaad ku dhalatay xamar xataa doolaala ku timid ninka tahay madaxweyne ogsoonow barnaamijkan maanta halkaasaan ku joojinayaa daawashadiina waa ku mahadsantihiin tareenka madaxweynaha ayaanu ka jawaabeynay iyo 24 sano uu dhahayay 24 maalmood bay noqon kartaa caqligiisa tusay waa 70 jir waxaa dhici karta digir dhacday inuu cunay oo bakteeriyadii ay tustay barnaamijka halkaasaan ku baxaya daawashadiina waa ku mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadeey